وعن مركل أصحاب تقييمها يقدر أنت إنك مضى مركل يهمون ميريا حتى تكون سبتها يتنا الكريح سبسكرايب سمو قالة أنا دنبا أدوشو وقرمك له وحيسب أنه قري سيد محمد عمر درويشكا وكهل ليس شغل أنت باسم يجر تقارة أفريقيا قرمضا وعوان ودقي أخونيها الشقوي hay-ad degan mid ka mid ah wadamada qaaradda Afrika ayaa maalin iclaamisay inay doonayso qof shaqaale ah waxaana waraaqihii shaqada lagu codsanayay soo xareystay dad aad u tiro badan oo dadkii si loo kala saaro waxaa laga qaaday imtixaan markii uu dhammaadayna waxaa la sheegay qofkii imtixaanka ku guuleystay waxaana uu ahaa nin aad u buuran san weyn waji ballaaran madow socod xun oo khalaafo leh waxaana ninkii loo sheegay in uu xafiiska maareeyaha hay-adda uu toos u tago ninkii oo faraxsan ayaa xafiiskii tagay kadib waa la soo dhaweeyay shaah iyo sharaab ayaa la soo hordhigay kaale iska arag sida wacan ee loo salaamayo loo qadarinayo loona dhiirigelinayo ninkiina waxa uu aad ula dhacay habdhaqanka wanaagsan ee uu maanta la kulmay kolkii uu dhammaystay qosolkii shaahii sharaabkii ayaa waxaa u yimid saraakiishii hay-adda uu magacaweynaa si ay ugu sheegaan shaqadiisa waxa ay tahay isna si dhagaraaracsan ayuu u dhageystay mid ka mid ah nimankii ayaa hadalkii bilaabay oo yiri mudane kadib kolkii aanu aragnay aqoontaada iyo aragaagaba runtii waad nacjab gelisay haddaba waxaanu kaa codsanaynaa in aad si fiican u dhagaysato halkan aad joogto waa Afrika oo dantaada unbaa laga fikiraa sideedabana shaqo nooc walba oo ay tahay faa'iidadeeda unbaa la eegaa sidaa daraaddeed hay-adayadu waxa ay leedahay beer xayawaan oo ay dadku u soo daawasho tagaan lacagna waanu ku qaadnaa haddaba dadka beerta dalxiisaya badanaa waxa ayna weydiiyaan hal xayawaan oo aanu beerta joogin halkaas xayawaan waa midka loo yaqaano gorilahana waa aanu weynay haddaba shaqada aanu ku doonayno inaad noo qabato waxa ay tahay in aad adigu noo matasho gorile maadaama aad adigu u ag tahay gorile ninkii oo indhuhu kasoo hareen ama kaag darteed ayaa isaga oo kheyrinaya yidhi war ma aniga oo bini aadam ah ayaad ileediin xayawaan iska dhig shaqada aad ii diraysaan ma noocan baa kadib ninkii waa la sasabay waxaana loo ballan qaaday in la sii doono lacag ciiddaa iyo camaalka ka badan haddii uu hawshan qabto waxaana loo sheegay in maalin kasta loo xiri doono dhar iyo wadi shaash leh oo ay marka ay fiidkii gaadhana uu u caraabi doono xaafadiisa iyadoo ayna cidna ogaanin ninkii ugu dambeyn waa uu ku qancay isaga oo og shaqo la-aanta ka jirta waddankiisa sidii ayuuna ku ogolaaday inuu shaqadii ka qabto isaga oo maskaxdiisa ka dhaadhiciyay in haddii uu shaqadan qabto aanay waxba yeelin oo aanu xayawaan ku noqonaynin ninkii sidii ayuu shaqadii ku bilaabay maalin kastana waxa uu xiran jiray dhar shaash leh oo u samaysan muuqaal u eg midka gorilaha beerta ayuuna joogi jiray maalin oo dhan dadkuna shabaqa ayay ka daawan jireen iyagoo moodaya gorile ayay kolba muuska u tuuri jireen isna waa uu iska cuni jiray fiidkii markay gaadhana intuu shaashka iska xidhigo ayuu xaafadiisa iska qaban jiray iyadoo aanay la ogeyn waxa ay shaqadiisu tahay balse loo haysto nin xafiis hay-adeed ka soo rawaxay waxay sidaa ahaataba ninkii oo maalin beerta dhex maraya oo sidiisii gorile matalaya ayaa waxuu meel loo ka arkay libaax in yar u soo jira oo kusoo ordaya ninkii naxdin awgeed orod buu isa sii daayay isagoo samada ka qaylinaya dharkii shaashka lahaa oo aad u cuslaa awgeed ninkii tallaabo ayuu qaadi kari waayay ilaa uu markii dambe dhulka ku kufay libaaxiina intaa waa uu soo ordayaa ninkii waxa uu arkay in maanta aanu ka badbaadayn libaaxa oo naftii waa uu ka quusay waxaase markiiba maskaxdiisa kusoo dhacday maanta marka aad dhimato alla waa uu ku cadaabayaa waayo isaga oo bini aadam kaa dhigay ayaad adna xayawaan iska dhigtay tan labaad maanta la odhan maayo ninkii hebel ahaa libaax baa cunay balse waxaa la odhanayaa libaax baa halkaas gorile ku cunay taasina waa ayaan daro labaad ninkii oo jiifa naftiisana haneeyey ayaa libaaxii soo gaadhay kadibna 4 lugood ayuu ka kala ritay ninkii cabaad ayuu ku dhuftay isagoo isleh talow welima adduunkii baad joogtaa mise aakhiro ayuu libaaxii qosol ku dhuftay war maxaad la qarinaysaa doqon iyo xumi ninkii waa yaabay kolkii uu arkay libaax hadlaya markaas ayuu haddana ka sii daray oo qayle iyo cabaad kale isku daray libaaxii oo la yaaban ninka qayladiisa ayaa yidhi war naga aamus wax yahow fulayga ihi
amba waxaan ahay aqoon-yahan shaqo waayay oo filinka libaax ku matalayay. Beerta waxa joogana ma waxaad moodaysaa inay yihiin xayawaan? War waa wada aqoon-yahano dhammaantood oo camal waayay kadibna xayawaan laga dhigay. Hay-aduhu badanaa dadka Afrikaanka ah waxay u adeegsadaan waxyaabo ka baxsan xayndaabka bini'aadanimo iyaga oo ka faa'iideysanaya camal la'aanta ka jirta dhulkooda. Waa qormo aad u xiiso badan oo uu qoray Sayid Maxamed Cumar Darwiishka. Waad ku mahadsantahay sida quruxda badan ee aad barnaamijka ku daawatay, balse ha iloobin haddii uusan channel-ka subscribe ku saarin inaad subscribe saarto oo like iyo comment aad noo reebto.